Muuqaalka waxaynu kaga hadlaynaa inaan ku xalino markaasi tusaalahan practicalka ah ee ku saabsan markaas sida la iskugu daro leebabsha loo yaqaano perpendicular-ka ama kuwa isku qotoma. Example markaasi tusaale: What is the magnitude and direction of two vectors A and B when B is equal to 0.4 meter per second towards east and A is 0.3 meter per second towards north? Waa maxay laxaadka iyo jihada markaasi ay yeelanayaan labada leeb ee kala ah A iyo B haddii B ay tahay markaasi velocity vectorka laxaadkiisu yahay 0.4 meter per second xagga markaasi bari, sidoo kale A-na uu yahay 0.3 meter per second xagga markaasi north waqooyi. Sidee ayaan soo saaraynaa laxaadka iyo jihada ay leeyihiin markaasi labadani vector? Tallaabada koowaad aan qaadanaa markaa waxay tahay inaan soo saarno wixii given ah ama aynu haysano. Waxaan haysanaa markaasi vectorka B midkaasoo laxaadkiisu yahay 0.4 meter per second. Waxa koowaad aan haysanaa markaa waxuu yahay vector B midkaasoo laxaadkiisu yahay 0.4 markaasi meter per second. Waxa labaad aan haysanaay waxuu yahay vectorka A midkaasoo laxaadkiisu yahay 0.3 meter per second oo jihada markaasi north ah. Sidoo kale waxaan sawir ku muujinaynaa markaas vectorska aan haysanay. Vectorka B waxuu yahay jihada east. Mar walba afartii jiho marka aan fiirino jihada east waxay noqonaysaa markaasi jihadan. Kuwani waa afartii jiho. Jihadan waxaa loo yaqaanaa markaasi jihada east. Jihadan kale waxaa loo yaqaanaa markaasi jihada north. Jihadan sare waxaa loo yaqaanaa jihada north. Jihadan waxaa loo yaqaanaa markaasi jihada west ama galbeed. Jihadan ugu hooseysana waxaa loo yaqaanaa markaasi jihada south ama koonfur. Saas daraadeed waxaan isticmaalaynaa afartani jiho si aan u go'aamino jihada aan u baahanaa. Jihadan B hadda waxay u taagan tahay east. East maadaama ay tahay jihada u jeeda dhinacan. Jihadan maadaama ay east tahay B waxaan u sameynaynaa markaasi ama waxaan ku asaynaynaa waxay tahay jihadan. Sidoo kale jihada labaadi waxay tahay markaas jihada north. Jihada north waxay tahay markaas jihada kor jeeda. Saas daraadeed A waxay ahayd jihada north. Saas daraadeed waxaan ku asaynaynaa A falaadhan. Waxaa soo hadhay jihadii aynu raadinaynay markaas oo ah markaasi jihada u jeedo vectorka R oo ah jihada verticalkii horizontalka midna aan ahayn. Aan soo saarno haddaba magnitude-ka oo u taagan yahay markaasi resultantiga ah iyo sidoo kale angle-kaas theta oo ah xagasha markaasi R ay dhulka ka sarreyso ama dhidibka horizontalka ay ka sarreyso. Imise degree ayay markaasi noqon doontaa xagashaas? Saan soo saarno haddaba tallaabada koowaad ee aan qaadaynaa waxa ay tahay tan soo socota. Waa inaan raadinaa marka vectorsku ay noocan oo kale iskugu tagaan ama sidan triangle-kan oo kale ama saddex xagalkan oo kale ay sameeyaan sidee ayaa loo soo saaray resultantiga R? Resultantiga R waxaa lagu helay bay ahayd qaybta horizontalka ah oo la square oo lagu daray qaybta verticalka ah oo la square kadibna la geliyay square root-ka ama xidid laba jibaarka. Qaybta horizontalka ama chiefka hadda waxay noo tahay B sidoo kale qaybta verticalkina waxay noo tahay A. Saas daraadeed R waxaynu ka helaynaa square root of B oo la square oo lagu daray A oo markaasi la square. Marka labaad waxaan si toos ugu bedelan doonaa markaasi qiimayaasha aynu horey u haysanay si aan u soo saarno markaas resultantiga R oo keliya. Waxaan isticmaalaynaa dhammaan qiimayaashii aan haysanay markaa. Halka B-du ay taalo waxaan ku bedelanaynaa 0.4 meter per second kadibna waxaan ku sameynaynaa square plus halka A-du taalana waxaan ku bedelanaynaa 0.3 meter per second kadibna waan square doonaa ama waa laba jibaari doonaa. Square root baan kadibna gelinaa. Intaa wixii ka dambeeya 0.4 markaan square-no waxuu noqonayaa 0.4 times markaasi 0.4 waa 0.4 oo la isku dhuftay markaas laba jeer. 0.4 oo lagu dhuftay markaasi 0.4 waxuu yahay markaasi 0.16 meter oo la square-na waa meter square, second oo la square-na waa second square. Sidoo kale 0.3 times 0.3 waa 0.3 oo laba jeer la isku dhuftay waa 0.0 markaasi 9. Sidoo kale meter la square waa meter la square, second la square-na waa second la square.
intaa wixii ka dambeeya 0.16 iyo waxaan isku daraynaa 0.09 iyagoo ku jira markaasi under square root ama xidid laba jibaarka waxa ay tahay markaasi 0.25 sidoo kale meter square iyo meter square baan kasoo qaadanaa second square iyo second square-na second square saas darteed meter square per second square iyo meter square per second square waa isku mid hal mid oo keliya ayaan kasoo qaadan kadib waxaan gelinay square root 0.25 markaan square root ka saarno waxay noqonaysaa 0.5 sidoo kale markaan meter square ka saarno wuxuu noqonayaa meter second square markaan ka saarnana second saas daraadeed resultant factorku waxa uu yahay ama magnitude-ka u dhexeeya labadii factor waxa uu yahay 0.5 meter per second ama si kale haddaan u dhignaa qiimihii r waxa uu noqonayaa 0.5 meter markaasi per second talaabada xigteen qaadana waxay tahay san soo saar lahayn markaasi angalka theta midkaasoo u taagan directionka ay yeelanayaan labadii factor ee lana siiyey angalka theta markaas waxaan ku heli doonaa qaacidadan tan inverse of a oo loo qaybiyey b halkaas oo qaybta a ay u taagan tahay qaybta verticalka ah b-na ay u taagan tahay markaasi qaybta horizontalka saas darteed halka eedu ay taalo waxaan ku bedelan doonaa markaasi qiimaha a aan haysano oo ah markaasi 0.3 sidoo kale halka b-du ay taalana waxaan ku bedelan doonaa qiimaha b aan haysano midkaasoo ah 0.markaasi 4 0.3 iyo 0.4 waan isku qaybin doonaa waxau noqon doonaa markaas 0.75 0.3 waxaa la socday meter per second 0.4na waxaa la socday meter per second maadaama meter per second iyo meter per second ay yihiin markaasi kuwa isku mid ah meter per second iyo meter per second waxay noqon doonaan markaasi kuwa isla baxa keliya waxaa isku soo hadhaya 0.3 ama eber dhibic 3 iyo eber dhibic 4 eber dhibic 3 iyo eber dhibic 4 markaan isku qaybino waxay soo baxayaan eber dhibic markaasi 75 tan inverse of intaas waa tan inverse of 0.75 waa 36 point markaasi 9 degree saas darteed direction koogu waxuu noqon doonaa 36.9 markaasi degree example-ka xiga waxa uu odhanayaa sidan waa example 3 two men are pulling a box along horizontal surface by exerting two opposite forces of 200 Newton on the right and 100 Newton on the left. What is the resultant force acting on the box? Waa two men laba rag ah ayaa waxay markaasi kuwa pulling jiidaya markaasi a box sanduuq iyagoo dul jiidaya sanduuqaasi ooga jiif ah kuna falaya xoogaga markaasi kale ah 200 Newton oo dhinaca bidixda iyo sidoo kale 100 Newton oo dhinaca midigta ah muxuu yahay haddaba xooga guud ee ku falmaya sanduuqaasi ay ku falayaan markaasi labadaasi nin si aan usoo saarno markaas xoogaasi guud waxaan kala soo dhex bixi doonaa meeshani markaas gifanka kow waxaan haysanaa 200 Newton oo dhinacee ah dhinaca right-ka midigta saas daraadeed waxaan ka dhigaynaa force 1 midka koobaad midka labaadna waxaan u bixinaa force 2 saas daraadeed 200 Newton on the right dhinaca midigta ah dhinaca midigta waa maxay dhinaca east waa bari dhinacaas waxa weeye markaasi positive saas daraadeed waa positive 200 Newton forcega labaadna waa 100 Newton oo dhinaca left bidixda ah maadaama dhinaca bidixda yahay dhinaca bidixdu waa maxay waa dhinaca west ama galbeed saas daraadeed waa minus 100 Newton intaa wixii ka dambeeya required waxaa inooga baahan yahay waxa uu yahay resultant forcega r ama xoog guud ee r resultant forcegana mar walba waxaa lagu helaa isku darka labada factor sida caadiga waxay yihiin kuwa opposites ku ah mar hadday opposites ku yihiinna qaabkan ayaan ku helanaa resultantigo force 1 oo loo geeyey force 2 force 1 waxaan haysanaa markaasi qiimihiisa midkaas oo ah markaas 200 oo Newton saas daraadeed halka force 1 ay taalo waxaan ku bedelaynaa 200 Newton sidoo kale force 2 waxaan haysanaa minus 100 Newton saas daraadeed halka force 2 ay taalo waxaan ku bedelaynaa minus 100 Newton 200 Newton minus 100 Newton pluska minus waa isku dhacayaan saas daraadeed minus oo keliya noqonaysaa minus 100 Newton 200 Newton oo laga jaray 100 Newton waa 200 laga jaray 100 waa 100 Newton iyo Newton waxaa laga soo qaadan doonaa markaasi hal mid oo keliya sidaas daraadeed resultant forcega guud ee ku falmaya sanduuqani waxa uu yahay 100 Newton oo keliya
Example 4 markaasi tusaalaha afraad. An ant is starting point and walk through 40 cm due to south and then move 50 cm due to west. What is the magnitude of the resultant displacement of the ant and its direction? Jinac ayaa markaasi waxa uu kasoo bilaabay socodkiisa waxaana u socday 40 centimitir jihada koonfur, sidoo kale waxa u dhaqaaqay 50 centimitir jihada bari, wuxuu yahay lixaadkii jihada markaasi barabaxa guud ee jinacaas. Waxa koobaadanaysana waxa uu yahay 40 centimitir markaasi jihada south ah, saas daraadeed S1 waxay kula mid tahay 40 centimitir south. Sidoo kale waxa labaadanaysana waxa uu yahay displacement 50 centimitir oo jihada markaasi west ah, saas daraadeed S1 waxay kula mid tahay 40 centimitir, sidoo kale S2 waxay kula mid tahay 50 centimitir oo jihada markaasi west ama galbeed. Ugu horreyn waxaan ku muujinaynaa markaasi sawir. Jihadan waxay tahay markaasi jihada west, jihadani waxay tahay jihada west, sidoo kale jihadan labaadina waxay tahay markaasi jihada south. Saas darteed jihada west waxaan ku astaynaynaa S2, sidoo kale jihada southna waxaan ku astaynaynaa S1. Tallaabada koowaad aan qaadana waxay tahay saan soo heli lahayn resultant factorka ah. Resultant factorka waxaa lagu helaa mar walba qaybta verticalka ama horizontalka taan doonaan ku horeynaa oo la isku weeray oo lagu daray qaybta verticalka oo la isku weeray oo lagu daray qaybta horizontalka oo la isku weeray kadibna la geliyay square root. Hadda qaybta verticalka waxay noo ah S1, saas daraadeed tallaabada koowaad aan qaadanaa waxay tahay inaan S1 isku weerno. Tallaabada labaad aan qaadanana waxay tahay inaan isku weerno markaasi S2da kadibna aan gelino square rootka oo dhammaystiran. Tallaabada labaad waxay tahay resultantiga waxa uu noola mid yahay halkii S1 ay taalo waxaan ku bedelanaynaa qiimaha 40 centimeter kadibna waxaan ku sameynaynaa square. Sidoo kale halkii S2 ay taalo waxaan ku bedelan doonaa 50 centimeter kadibna waxaan ku sameynaynaa square. Kadibna waxaan gelinaynaa square rootkii guud. Intaa wixii ka dambeeya 40 square waa 40 lagu dhufto 40 waxay tahay markaasi 1600 centimeter square waa centimeter square. Sidoo kale 50 square waa 50 lagu dhuftay 50 waana 2500 centimeter square waa centimeter square. Ugu dambeyntii markaa resultantigu waxa uu yahay 1600 oo lagu daray 2500 4000 markaasi boqol ay isku noqon doonaan labadooduba. 4100 centimeter square iyo centimeter square na waxaan kasoo qaadanaynaa markaasi 1 centimeter square oo keliya. Intaa wixii ka dambeeya 4100 waxaan ka saaraynaa markaasi square rootka ama xidid laba jibaarka waxayna kaga baxaysaa 64 centimeter. Sidoo kale centimeter square wuxuu kaga baxayaa centimeter oo keliya. Saas daraadeed resultanti displacementiga ama barabaxa guud ee uu dhaqaaqay markaasi antigaasi waxa uu yahay 64 centimeter oo keliya. Tallaabada xigtay qaadana waxay tahay saan soo heli lahayn directionkii ama jihadii. Jihada waxaan ku helnaa mar walba angle-ka theta oo kula mid ah tan inverse qaybta verticalka loo qaybiyay qaybta horizontalka. Qaybta verticalka ah waxaan haysanaa markaasi qiimaha 40 centimeter. Saas daraadeed halka S1 ay taalo waxaan ku bedelan doonaa 40 centimeter. Sidoo kale halka S2 ay taalo waxaan ku bedelan doonaa 50 centimeter ama 50 oo ah markaasi qiimihan haysanay S2. 40 iyo 50 waan isku qaybin karnaa waa 0.08 tan inverse of 0.08 na waxay tahay 36 point markaasi 7 degree.